وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أصحاب ياس وحوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري يقال لصاحب القرآن ما أنت يوم القيامة قفك قرآنك إهلك وها آخرين شري وحال قلها يا اقرأ وارتقي قرآنك أخري فول درجوينك السنة إيه دبقيدا سنة فول ورتل كما كنت ترتل في الدنيا كلا دقدق قرآنك سيداد أكلا دقدق جرتي مركا الدنيا دا جوكتي فإن منسلة وحوية عند آخر آية تقرأها آية أغدن بيسا عد آخرنسو وي ماشا بوسكا أدو آدقسو وبوسكا آية أغدن بيسا عد آخرسو حديث كانوا wuxuu ka shaqeynayaa dadkii quraanka akhrin jiray ee quraanka ehelkeeda ahaa ee markay adduunyada joogeen ee akhrin jireen waxa weeye maalinta yawmal qiyaame waxa lagu dhahayaa quraanka akhri bilow hadhowtana fuul jannada meesha aad ku joojisid waxa weeye booskaagu ayuu noqonayaa almuhim meesha uu ku joojiyana waxa weeye waa meeshii uu ku joojin jiray qofkii quraanko dhan akhrin jiray waxa weeye waa qofkaas wuxuu sameynayaa quraanko dhan ayuu dhameystirayaa ilaa aayada ugu dambaysa uu dhameeyo ma istaagayo qofkii quraanka kala badh akhrin jiray saasoo kale qofkii jis kaliya akhrin jiray jiskaas kaliya intuu markuu akhriyo ayuu halkaa ku istaagayaa markana almuhim waxa weeye walaalayaal quraanka inaynu badino inaynu akhrino inaynu quraanka ka dhigno dhaqankeena iyo caadadeena inaynu ku soo celcelino si ma garanaysaa quraankii akhiro aynu meel weyn oo fog aynu u fulno aynu darajo weyn u korno aynu quraanka insha Allah ta'ala joojin illa aynu meel weyn fulno mahani nabiga sallallahu alayhi wasallam hadith ibn Umar oo ka warinayo ayaa wuxuu leeyahay inma mathalu صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة قفك صاحب القرآن وحوي واسدة جيل مقرنسا لحيحري جيل مقرنسا دا جيل والحرا جيل مقرنسا من مركو لغبقو إنو جيلو اسكبح صدو لغوها لغحرا معلقة أيها لغو سمية markana waxa weeye waa qof quraanku waa sida geelaas oo waxa weeye in ahada calayha amsakaha hadii uu ku dadaalo oo uu ku soo celceliyo wuu qabsanayaa wayn adlaqaha dhahabat hadii ma garanaysaa uu sii daayana way tagaysaa geelaas ama neefka geela hadii uu ma garanaysaa xidho markastaba xidho marka isku daydo inay baxsato ay kibirtaba inuu xidho ma garanaysaa qofkaas uu ku dadaalo neefka isaga leh laakiin hadii uu ku dadaali waayo way iska tagaysaa uu sii daayo way iska tagaysaa markaana waxa lagu leeyahay qofka quraanka xifdisan ee qofka quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay waxa weeye waa qofkaas oo kale hadii uu quraanka ku soo celceliyo oo uu ku dadaalo oo quraanka juhdi weyn uu galiyo habeen iyo maalin quraanka isaga iska leh isagaas kale xiftigiisa iyo macnihiisa iyo fahankiisa iyo tafsiirkiisa iyo waxyaabihiisa dhan qofkaas isagaas kale laakiin hadii uu ku dadaali waayo oo uu dayaco oo maalmo farabadan uu ka maqnaado oo sanado farabadan oo maganaysa aad u dayaco qofkaas quraankii uu ka tagayaa wuuna ka guuraya markana sidaas weeye waa in quraanka sidaas loogu soo celiyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri oo kale xadiis oo Abu Hurayra uu warinayo wuxuu yiri yaqulu sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma adina Allah li shay'in ilahi subhanahu wa ta'ala mu ilmin shay ma adina li nabiyyin siduu ugu ilmay shay uu u ilmay nabi hasan as-sawti cud wanaagsan yataqanna bil qur'an in uu wanaajiyo ama uu ma garanaysaa macaansado quraanka
yajharu bihi qur'aankaasoo oo weliba uu kor u qaadayo. ma garanaysaa halkana waa mas'alo khaas ah oo ah qur'aanka cod wanaagsan ma lagu akhrin karaa mise laguma akhrin karo. qur'aanka cod wanaagsan oo aad iyo aad u weyn waa lagu akhrin karaa, laakiinse codka qur'aanku wuu ka duwan yahay codka heesaha oo kale. oo dad baa waxaa jira dhowr qof oo marmar codkoodu codka heesaha oo kale yahay oo ma garanaysaa ku akhrinaya qur'aanka. taasu ma garanaysaa shay aan banaanayn diiniyan weeye, laakiinse waxaa la doonayaa qur'aanka codkaaga ku wanaaji, laakiinse codadka kale, codadka heesaha iyo codadka ma garanaysaa buraanburka iyo codadka ma garanaysaa gabayada iyo codadka kale ee lagu akhriyo ha ku akhri. qur'aanku wuxuu leeyahay cod gaar ah oo mutawaatir ah oo lagu akhriyo, markaana codka gaarka ayaa lagaa doonayaa adigu inaad ku akhrisid. markaa nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu amray inuu qur'aanka codka la hagaajiyo oo codka la wanaajiyo oo cod macaan oo raaxo leh lagu akhriyo. markaana taasuna waxa weeye waa shay qiimo weyn oo qofku cod macaan hadduu qur'aanka ku akhriyo waxaa laga yaabaa qur'aanka xoogaa dareen wanaagsan inay geliso. wayna kala duwan tahay mas'alo khaas ah weeye qur'aanka ma garanaysaa tadabburkiisa iyo in aad codka qofka ku raaxaystid. dad far badan baa waxaa laga yaabaa taraawiixdoo kale ayay dhacdaa, waxay aadayaan masaajid, waxay aadayaan qof qur'aan ka si wanaagsan oo cod wanaagsan ku akhriya ayay aadayaan, hadhowtana codkii bay ku raaxaysanayaan, hadhowtana waxay ka dhigayaan sidii qur'aan kuwa ku tadabburaya oo macnihiisii fahmaya. oo dadka qur'aanka ku tadabbura waxa weeye waa dad khaas oo ma garanaysaa waa dad iimaan leh oo qur'aanka fahamkiisa iyo macnihiisa garanaya. marka badanaaba culimmadu way ka hadlaan oo waxay dhahaan qofkii qur'aanka ma garanaysaa qof cod wanaagsan ku khushuuca dee qofkaasi qur'aankii kuma khushuucin macaankiisa iyo laftigiisa, qur'aanka micnihiisa kuma khushuucin, laakiinse sawt hada rajul ninkan sawtkiisa iyo codka uu ku akhrinayo ayuu macaansaday, laakiinse ma aha ama laba mid aha sidii qofkii ku khushuucay qur'aanka macnihiisa iyo qur'aanku wuxuu ku hadlayo, laakiinse qofka codkiisa iyo sawtka qofkaas ayaad ku khushuucday macaansatay. markaana sidaas ayaa tahay dee taasuna waxa dembiya maaha, ma garanaysaa waa shay qur'aanka ma garanaysaa ku macaaneynaya. qof cod wanaagsan inaad dhegaysatid ma garanaysaa qur'aanka inaad dhegaysatid oo qur'aanka inaad macaansid ayay keensanaysaa, laakiinse lama mid aha inaad qur'aankii ku khushuucday oo qur'aanka ku tadabburtay oo qur'aanka macnihiisii iyo ma garanaysaa iyo wuxuu ku hadlayay ma garanaysaa aad ku khushuucday ku tadabburtay. taas oo kale maaha. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri abi muusa al-ash'ari wuxuu ku yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam laqad uutiita mismaaran min masaamir ala daa'ud. waxaa lagu siiyey mismaar, macnaha macaankii iyo codkii wanaagsanaa ee la siiyey min masaamiri ala daa'ud, heer ala daa'ud ehelkiisii. ala daa'ud ehelkii daa'ud waxay ahaayeen ahla daa'ud reer ma garanaysaa qur'aanka markay akhrinayaan ama ma garanaysaa dee waxaygii iyaga lagu soo dejiyey, waxaygoodii markay akhrinayaan iyo shaygii iyaga lagu soo dejiyey dee ma garanaysaa shay ma garanaysaa way ku raaxaysan jireen. markay akhrinayaan waxaygii iyaga loo keenay aad bay ku raaxaysan jireen oo waxay ahaayeen dad aad iyo aad u cod macaanaa. oo nabiyullaahi daa'ud baa wade asaasay oo aabahood ah, oo nabiyullaahi daa'udna dee waxa weeye waa nabigii markuu qur'aanka akhriyo xitaa shimbiruhu iyo xayawaanadu ay istaagi jireen, ay dhegaysan jireen ayna la akhrin jireen. markaana waxa weeye cod macaankiisa intay istaagaan ayay dhegaysan jireen shimbiruhu. markaana waxa weeye wuxuu leeyahay nabiga sallallahu calayhi wasallam abi muusa ashcari ayaa wuxuu ku leeyahay waxaa lagu siiyey kuwaas ama heerkaas codkoodii oo kale ayaa lagu siiyey. markaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuu dhegaysan jiray abi muusa ashcari qur'aankiisa wuu dhegaysan jiray. markaana insha allahu tacaala sidaas weeye in qur'aanka lagu akhriyo cod wanaagsan oo aad iyo aad muhiim u ah.